Benandine Munira oo ka ganacsata suuqa furan ee Toy ee magaalada Nairobi ayaa sheegtay in ay ku dhibtoon. Assalaamu calaykum, soo dhawaada asxaabta. Hadaad horey noola joogtay like-inoo saar, hadaad nagu cusub tahayna subscribe noo taabo. Waad mahadsantihiin. Maateeyo ganacsatada dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi, dad caraysan oo Kenyan ah ayaa baraha bulshada ku soo bandhigayay cabasho ay kaga cabanayaan maciishada qaaliga ah ee dalka ka jirta, taasoo ay keentay sare u kac ku yimid qiimaha badeecadaha asaasiga ah sida cuntada, korontada iyo shidaalka. Dadka Kenyaanka ah oo isticmaalaya hashtag-ka cunnada hooseysa ayaa dowladda ku dhaliilay in ay ka gaabisay in ay hakiso sare u kaca ku yimid qiimaha maalinlaha ah oo ay sheegeen in ay nolosha ka dhigtay mid aan loo dulqaadan karin. Bishii Janaayo guud ahaan heerka sicir bararka dalka ayaa wax yar hoos u dhacay bishii labaad ee isku xigta ilaa 5%, laakiin qiimaha badeecadaha cuntada asaasiga ah sida daqiiqda galleyda iyo daqiiqda baradhada, khudaarta iyo miraha ayaa sii kordhay, taas oo laga yaabo inay si aan qiyaas lahayn u saamayso hooseeya iyo qoysaska dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay. Sicir bararka cuntada ee bishii Janaayo ayaa gaaray 9%, taasoo la micno ah in dad badan oo Kenyan ah ay la daalaa dhacayeen sidii ay cuntada miiska u saari lahaayeen. Xafiiska Tirakoobka Qaranka ee Kenya KNBS ayaa sheegay in qoysaska saboolka ah, halkaas oo cuntadu ay ka tahay 36% wadarta kharashaadka, culaysku waa ka sii badan yahay. Dad badan ayaa wadaagay liiskooda wax iibsiga, iyaga oo tafaasiil ka bixinaya sida qiimaha cuntada asaasiga ah sida caanaha, rootiga, sonkorta iyo daqiiqda uu aad sare ugu kacay bilihii la soo dhaafay, taas oo ku adkaynaysa in ay helaan 3 waqti oo cunto ah maalintii. Laakiin in kasta oo jahawareerka baraha bulshadu uu ahaa mid wadareed, cadaadis dhaqaale ayaa aad u xanuun badan heer shakhsi ahaaneed. Benandine Munira oo ka ganacsata suuqa furan ee Toy ee magaalada Nairobi ayaa sheegtay in ay ku dhibtoonayso sidii ay cuntada miiska u saari lahayd, maadaama miisaaniyada qoyskeeda ee bilaha ah aysan iibsan karin wax badan oo ay awoodi karto dhowr bilood ka hor. Qiimaha badeecooyinka runtii kor buu u kacay. Ma qaadan karno in ka badan dhowr bilood ka hor buuxinta 6 kiilogaraam 13 lb ee haanta gaaska wax lagu karsado waxay u dhaxaysay $5 ilaa $6. Maanta waa ilaa 13 ayay tiri. Waqti dambe iyada oo miisaaniyad wax iibsiga ah oo dhan $26 aad kaga tagi lahayd sanduuq ay ka buuxaan alaab, maanta isla lacagtaas ayaa ku siinaysa dhowr shay.